hadda waxa laga yaabaa inay istiraadad lacagtan la aruurinayo xagee la geeyaa dadka loogu talagal oo dhibaataysan oo loo aruuriyo ma gaartaa marka maanta waxaan idin haynaa video tusaya dadka Soomaaliya ku dhibaataysan lacagtan inay gaarto waxyaalo badan oo faa'iido ah ay ka soo baxaan waxaan idin hayaa gabadha magaceeda la yiraahdo Kaltuun Maxamuud Barkhadle iyo ninkeeda oo ka sheekeynaya dhibta haysta ila daawada oo arka Kaltuun dhibta haysta bismillahirrahmanirrahim anigu waxaan imi kogo magacayga bismillahirrahmanirrahim anigu waxaan magacayga wax la Kaltuun Maxamuud Barkhadle waxaan imi kogo dad yiri kogo waan u tagnaa ayaa sidaas ugu yimid marka walaalayaal dadkaas walaalaya ee kogo ayaan daawo waana cusub xanuunkaada nishay xanuunkayguna angeer baandala dib baan ku gaaray wax xabadii oo dagaalkii socdo oo dhibkii socdo ayaan ku dhex dhalay naag aan waxba garanayn ayaa iga dhalisay xoog ayaa ilmihii la igu soo jiiday walaalayaal dhibkaas ay haysta haddii wax la ii qaban karo qaadida waa iga socota dhib waa ay haysta Allah gargaar la dhakhtar awood Allah iskala walaalayaal dhibkaas ay haysta yaan idin ka codsanaya haddii wax la ii qaban karo walaalayaal bismillahirrahmanirrahim badi bismillahirrahmanirrahim walaalayaal khayr Allah idin siiye marna waa maqalnay shirkadna dhoo qofwa oo dadka aad u tawaalaysan oo masaakinta u gargaarto raadiyahan waan ka maqlay hatta Voice of America waan ka maqlay BBC dan ka maqlay hatta ilaahay saaka ilaahay waa bijay meeshaan imaanay gabadhan waxa la Kaltuun Maxamuud Barkhadle ana qab xaaskayga waa ani daan hay way jeedin wali ma guursanin guurkay ugu horeeyay aydan guursaday ilaahay uu badan iga siiyay wiil ay dhashay wiilkii markay dhalaysay ha ooyin walaalo qadarta rabbi arkeen ha ooyin waa bariya wax kasta Allah qadar marka dhalaysay dagaal soo aday waa dhaqtar waay naagan wiilgeed dhaqtar noqonina gacan gelisay marka feerahana way ka taagsatay anugu waxa gacan hoogaa lagu soo bixi alxamdulillah rabbil alamin marka waxa isku go'ay kaadi iyo dabar xanuun lafii waa garaacaya ilaa masaxada unugi hata maqaan kar saddex bi hata maqaan kar marka dibkaas ay jira Allah idin gargaaro noo gargaara wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh arintani oo ahayd arin aad iyo aad looga calal xumaada ayaa dadweynaha ku nool magaaladaas Ottawa ay isxilqaameen lacag ay iska aruuriyeen Kaltuun oo la daweeyayna ila daawada hadaladeedii bismillahirrahmanirrahim magacayga waa Kaltuun Maxamuud Barkhadle xanuunkayga jirrada ee heshay wiilka iga caawiyay محمد عبد العزيز ما حاي إلهي وحن قبري جنوين كوفي عن إلهي أوصي الدنيا ذنا رب الله كمكان إن شاء الله رب ويقع قاعدة وان شرنا أولا مقدسة لحتى أنا سكود داوية ما هيس إلهي هاو قرقارة آخريها دون كذا وإيه قرقارة وإيه معي أولا أنا الحين أيوة كان مقالة عن هذا الشيء نيروبي الله وقرقاره سلام adduunka saaran badaha ka culus buuraha biyaha badda ka badan ayaan u diray allah u miceen aakhiri adduunka